بسم الله. halkan waxaa ka hadlaya ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed qani dowladda deegaanka Soomaaliya jigjiga waxay clipkan warkan u socdaa dadkayga iyo tolkayga degan countiga Garissa waqooyi bari Kenya waxaan aad uga argagaxnay oo ka xumaanay oo niyadda anaga dilay runtii sida dad walaala oo tolay sida isugu dili karaan wax sabab oo weyn anagu ma aragno mana aanan maqal intii dhimatay Allah u naxariisto qoysaskii ay ka kala baxeen samir iyo iimaan iyo bedel khayr qaba Allah siiyo waxaan tuhmayaa in dhagax meel dheer laga soo tuuray uu yahay oo arrintan aynan ahayn arrin ayaga sidooda ugu timid meel fog qorshe ka yimid inuu yahay oo loo baahan yahay in la baadho la ogaado la dabagalo oo laga hortago waxaan ugu baaqayaa awalan horta inay joojiyaan wax allaala wixii gacan qaada iyo wixii abaabula iyo wixii shaki iyo colaad sii badin kara marka labaad waxaan ku boorinayaa dadka dawlad baa meeshii joogta in hay'adaha ammaanka lagu ixtiraamo oo looga dambeeyo baadhista iyo wax ka qabashada iyo kala qabashada reerka iyo madaxda meeshii joogta iyo odayaashaba hadalkii Suldaan Deeqo waan maqalay khayr Allah siiyo iyo odayaal kaleba waxaan ayagana aan rajaynayaa in culimada iyo odayaashu ay dejinta dadka iyo xasiloonida iyo in sharciga la raaco ay wax weyn ayaguna ay ka qaban doonaan oo ay ku boorin doonaan arrintaa hal qaboojiyo ilaahayna hanaga qaboojiyo ilaahay hanaga qaboojiyo fidmadii Soomaaliya ka dhacaysay geeska Afrika ka dhacaysa meel walbaba qayb kamida hadday tahayna waa idinkaa ku filan oo durba iska qabta haddii wax meel fog laga soo abaabulahayo labada reer arrin colaad iyo siyaasad iyo wax ku lug lehna ay tahayna oo meelo kale ay ka imanaysana in si degdeg ah aad u hor istaagtaan oo u wada intaad ugu midoodaan aad uga hortagtaan baa loo baahan yahay waxaan idin rajaynayaa khayr badan waxaan idin rajaynayaa nabad waxaan idinka codsanayaa oo aan aad iyo aad aan idinka maartay rajaynayaa in ay halkaa ku joogsato wixii xumaana labada dhinacba oo wixii ka dambeeya walaalow iyo isla hadal iyo isfaham ay ku dhammaato insha Allah khayr baan idinku ogahay tol jira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.